kootada haweenka wariyaha BBC da magaalada Hargeysa Sidiq Maxamed Burmad ayaa imka khadka toos ku jira. Sidiq soo dhawow arrinkan saami qaybsiga aynu ku horeyno aad loo hadalhayo maalmahan maxaa ugu dambeeyay wararkii ku saabsanaa arrimahaasi saami qaybsiga ee ka imanaya deegaamada qaar Sidiqow? Cabdiraxmaan oo saad sheegtay intii heshiiska ka dambeysay ayay sii xogeysteen baaqyada ku saabsan dhinaca saami qaybsiga waxa dhalinyaro reer Boorama ah ayaa baaq qoraal soo saaray kadibna isu soo bax ay arrinta kaga hadlayaan sameeyay sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna ka hadlay ma aha arrintani wax cusub waa arrin soo taagneyd muddo dheer oo ku salaysan qaybsiga kuraasta arrinta haatan waliba marka la eegayo kuraasta golaha wakiilada ee doorashadooda la qabanqaabinayo waa 280 xildhibaan marka sida loo kala yeelanayo ayaa gobolada qaar kood bulshooyinka ku nool ay saluusan yihiin tirada ay ku leeyihiin marka Sidiqow sideeba lagu saleeyay ama sideeba ku soo bilaabantay in 280 kan loo qaybiyo gobolada Soomaaliland waxa weeyaan Cabdiraxmaanow waxa lagu saleeyay 330 kursi baarlamaankii 1960kii markii Soomaaliland xorriyadda ay ka qaadatay sidii ay u kala lahaayeen gobolada ama beelaha Soomaaliland wada dega 330 ka sidii ay u kala lahaayeen ayuun baa lagu dhuftay 2.5 deena kororkii waxa uu noqday 280 kan xildhibaan iyadoo marka saa loogu dhuftana ay tirays ku mid ah ay wada kordhayso gobol walba laakiin gobolada qaar baa arrinta laftigeeda saluugsan doonaya in saami qaybsigii 60kii aan la taagnaanin ee la sameeyo saami qaybsi cusub oo lagu wada qanacsan yahay waan gartay Sidiq xagga haweenka laftigooda waxaan arkaynaa ururada haweenka iyaguna ka hadlaya kootadii baarlamaanka markaas taa laftigeeda halkee la isla marayaa maxaa taa laftigeeda ugu dambeeyay taa laftigeeduna way soo garab socotay oo tan iyo doorashadii 2005 ee golahan haatan joogay ee wakiilada la qabtay tan saami qaybsiga beelaha iyo tan haweenkuba intaa way soo taagnaayeen markastoo doorasho qabta la islaahdana arrinta saami qaybsigu way imanaysaa ama haween ha noqoto ama ha noqoto tan beelaha ama gobolada ku salaysan waana sababta doorashada inta dib loogu qaban waayay markastoo caqabad ay u noqonaysay marka tan haweenka laftigeeduna way garab socotaayo intan xaaladan heshiisku ay soo baxday laftigeeda dumarkii way hadlayeen oo dhawaan xitaa waxa kulmay dalada ururka haweenka iyo waliba haldoorka haweenka ayaa isu yimi iyo waliba way wehelinayeen midowga Yurub waxana ay soo saareen qoraal ay ku dalbanayaan in kooto gaar ah loo sameeyo haweenka aad baad u mahadsantahay Sidiq Maxamed Burmad oo magaalada Hargeysa toos igaga soo biiray bal iminkana caawa iyo ciyaaraha koobka FA Cup